saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashadaad daawanaysaan janaalkayga fadlan subscribe ii saar aad baa mahadsantihiin maxamed bolle mid ka mid ah xidigihii ugu macquulsanaa gobolka mudug soo maray inuu lahaa aadaab iyo akhlaaq cid kasta kula macaamili jiray mid ka mid ah xidigihii kubadda cagta sida fiican u maamuli jiray inuu lahaa sifooyin hogaamiye kuna maamuli jiray kooxdiisa markii dambena noqday hogaamiye kooxeed cidda uu arkay xidigii ugu cajiibsanaa waayihiisii ka hor imaaday sababta keentay isagoo istreekar ah inuu isugu soo biirsho qadka dhexe wararkaas iyo warar kale oo badan ayaan waxaan ka waraystay maxamed balle oo jooga magaalada gaalkacyo kusoo dhawow hanfada production maxamed dhawahay walaale aad iyo aad ma u mahadsantahay hanfada production maxamed dadka isbar magacaaga saddexaan meesha aad ku dhalatay anigu waxaa la yidhaahdaa maxamed balla ku magac dheerahay waxaan ku dhashay Kismaayo laakiin yaraanteedii iyo intii waxbarashadeedii gobolka mudug gaalkacyo ayaan kusoo qaatay marka ninka noocaas aan ahay maxamed balla hadda magacaas sheegana dhalinyaro badan reer mudug aad iyo aad bay garanayaan waa hagaag golihii aad ka gaartay sportska marna ahayd player marna ahayd gudoomiye wax ma ka xusi kartaa cabdi qafaar horta sportska gobolka hadda heer baan soo marnay ilaa yaraanteedii horta markii hore waxaan ku barbaaray college-ka ilaa serie B ilaa serie C halkaas waayihii sportska kasoo bilaabay kadib serie B-dii markaan kasoo bilownay waxaan kusoo biiray kooxaha Serie A gobolka adigu ilaa 4 kooxood baan soo ciyaaray marka mustaqbal fiican oo maasha Allah baan la soo qaatay xulka gobolka mudugna 2 jeer baan u saftay marka cabdi qafaar intaas ka xusi karaa waa hagaag ciyaaraha markaad ka fariisatay waxaan noqotay gudoomiyihii kooxdii hore ee B Center hadda loo yaqaano Yameyska maxaad guul aad gaarsiisay wax qabad ahaan haddii noqon lahayd safaro dal iyo dibad iyo koobabba hadda marka ciyaaraha ka fariistay gudoomiyihii sports waxaa noqday kooxda Yameyska markii horena saxa ahayd Bicenter iyo saxa ahayd laakiin Bicenter ma ahayn laakiin Bicenter waxa ahayd kooxahan kusoo bilaabay saraadan kusoo galay laakiin kooxda gudoomiyaha ka noqday waa saxa oo markii dambe isku bedeshay Yameyska kooxahaasna ilaa heer fiican baa gaarsiiyay jiilkii ugu dambeeyay inkastoo aanan koob aan ku guuleysan laakiin finaalo iyo dhowr tartamaan gobolkuna haddana weli waxay ka tahay kooxaha ugu horeeyo 4 kooxood oo Big Four-ka ah ugu horeeya gobolka mudug ku jira insha Allah haddana waxaan ku rajaynayaa inaan guulna gaaro haddii Alla idmo وهاك محمد مركز هوري waxa ahayd la marnay ma ii sheegi kartaa cidda ka dambeysay inaad qadax ka ciyaarto oo isugu soo biirsho waayaha dambe hawlale horta marka hore markaan ciyaaraha siraada soo galay nin baan ahaa nin saaxiibkay hadda gobolka joogo ay u dhiirigeliyay inaad siraada soo biiro saaxiibkay magaciisa waxa maxamed habas oo markaas kooxda B Center garoonkaan kusoo wada galnay anagoo Serie B kasoo gudubnay aniga isaga iyo qoojo iyo rag badan oo haddaan xusi karo marka nin baan ahaa markii dambe B Center waan ka wareegay oo waxaan wareegay kooxda dowladda hoose ayagana nin baan ahaa guulo badan baa la gaaray kadibna ayagana waan ka wareegay oo waxaan wareegay kooxda sixan waqti baan wada qaadanay ayagana nin baan u ahaa kadibna markii dambena waxaan wareegay kooxda Yameyska markaas xaas ku bedeshay markaan oo nina macallinkayga hadda ugu jeclan macallimiinta waa kooxdii la wareegay ciyaarteedii buu fiirshay nin markaan waxaan aad u dhaqdhaqaaq badan oo micnaha hadee hawaarihiisa iyo kubadiisa raacashada iyo anoo nina baan dhexda badan ka raacan jiray ama baalayaal ka raacan jiray markaasuu macallinkii maalintan go'aan wuxuu qaatay inuu dhexdiisa cisho marka macallinkaas macnaha Cabdullaah wuxuu yiri waxaad ii tahay hadda kadib boos ka dhexda oo siiga adiga ciyaaraysaa
marka saasaan ugu soo noqdo dhexda asaan igu carbaabiyey iguna tababaray inaan dhexda usoo noqdo. qaranka gobolka mudug markaa matalaysay ma waxaad uga ciyaaraysay naynka mise qaddex? cabdiqaar horta qaranka marka la iga yeeray ugu horreysay horta maxaa Elias baa guddoomiye ahaa markaasna nayn baan ka ciyaarayay marka raggii markaas qaranka looga yeeray oo minaha hadii sarada soo galay anagoo 3 nin aan ahayn Sharmaarka Jibriil Shabaka Cagabadeel iyo Hurfe iyo aniga aan ahayn kulanka ugu horreeyay saftana waxa ay Beledweyne iyo Gaalkacyo ciyaaraya marka nayn baa ka ciyaarayay macallin waxaan u ahaa Axmed Deeqor Dheere galabtaas waa garanayaa gadaal baa laga keenay gool oo maxamed xooday madaxa igu baasay baan dhaliyay marka xulka markaas ay ugu horeysay wixii ka dambeeyayna markii dambana xulka 2 jeer oo kale la iga yeeray oo tartamo gobolka Puntland gobolkii loo qabanayay marka labada jeerna waxaan ka ciyaaraya dhexda. hagaag imse koob ayaa ku guuleysatay haddii ahaan lahayd kooxaha u soo ciyaartay iyo qaranka haddii jireen haddaad koob kula guuleysatay? oral koob waxaan kula guuleystay kooxda Yamayska 5 jeer baan final limid oo isku xigta 3 waa guuleysanay 2na waa finalkii baan laga qaaday kooxda Gaalkoob waxna qaaday kumseed 3 kalena waan qaadnay oo 3 isku xigay ahayd Gaalkoob mar laga qaaday baan ka qaadnay oo ka ceshanay markaas iyo 2 jeer aan kumseed aan ka qaadnay marka 3 final baan ku guuleystay. maxamed ma ii sheegi kartaa guushaadii ugu fiicneed waayahaaga sports aad gaartay? guushaadii ugu fiicneed waxay ahayd wallahi Cabdiqaar koobkii ugu horreeyay oo minaha aan ku guuleysto farxadeeda iyo waayaheeda koobkan ka qaaday Gaalkoob markaas ahayd kooxda kaliya gobolka haysatay oo Beledweyne aan aad iyo aad u qadariyo oo waaweyn oo markaas ku diin jiray kubadooda inaan sameeyo ama igu horreeyay sportska sarada ay ciyaarayeen sida Maxamed Sheekh iyo Cabdiqaadir Sandheere iyo Sisi iyo rag badan baa ciyaarayay oo maadabay kamid yihiin marka kooxdaas markaan galabta final ka qaadnay Ibrahim Cabdullaahi Shil hadda guddoomiyahaas guddiga garoonka marka kooxdaas markaan koob ka qaadnay farxadii ugu weyneed aan farxo oo manaada taariikhda aan qoran taasay walaal. ma jirtaa guuldarotii kugu xumeed ku soo gaartay xilligaad ciyaaraysay kooxaha gobolka? aad iyo aad waa jidha walaalay kubadda la ciyaaraysa horta guuri guuldaro labada helaysa mid kugu xumeed iyo mid kugu farx badan labadaba ku soo maray hadda dareer tahay kubadda saaxadda ku shidid guusheeda ugu xumeed waxa ahayd anoo u matalay gobolka Mudug tartankii gobolada Puntland guuldarada naga soo gaaray gobolka Nugaaleed ay 5 iyo 1 ay inooga badiyeen guushaas ay ugu xumeed walaalay taariikhda. ma jirtaa roose aad qaadatay oo aad ilaa hadda ka qoomimaysid? may inta aan ku jiray ciyaaraha roose aan qaatay ma jirin oo ciyaar uga maqnaa laakiin jaallo waa jireen kala duwan laakiin wali roose kuma maqnaan. markaad khadka dhexe ahayd isfahan weyn iyo idinka dhaxin jir? isfahan weyn aad iyo aad kooxda Yamayska markaan ciyaari jiray rag isku xiran baan ahay oo isku buunoon bartay aad iyo aad waxaa khadka dhexe noogu dhaxin jiray Aadan Deemre iyo Axmed Kays Allah u naxariisto hadda dhintay oo player aad ugu qaali ahaa. Allah ya raxmo. maxamed adigu dabacad ahaan see isku aragtaa markaad garoonka ku jirtid? wallahi kubadda inkastoo iska xamaas badan tahay markaad kubadda iskaashanka ku jidid marna waad faraxsan tahay marna xamaasadaadu aad u koraysa markii guusha laga wato markaad guusha wadatin aad bay sidoo kale xamaasadaadu u kacsan tahay marka aad iyo aad isku xakameyn karnin iska dhexdhexaad ahmaa iska ahaa 100% arbitriyashana aad iyo aad bay amaani jireen oo waxba caqabada meelahan ma dhex mari jirin inkastoo marka xamaasadu ay kubad markay 90 daqiiqo garoonka ay ahaan jirtay marka aad iyo aad bay wallahi isku arkaan degan oo aad iyo aad arbitriyashana amaani jireen. kooxaha gobolka koox aad jeclayd kubaddeeda ma jirtaa inaad daawatid? kooxaha gobolka inkastoo kooxo gobolkiisa kala dhicin laakiin kooxda aad iyo aad kubadda u daneyn jiray oo kooxda mubaro weeye dhalinyaro baliirin fiican oo aad iyo aad farsamooyin iyo soo ciyaari jireen sida Dalbeero iyo Nuur Inji iyo Samaaka iyo Farisay rag aad iyo aad active oo aad iyo aad u khatar ah kubaddooda u jeclaaday daawashadoodan jeclaan jiray kooxdaas iyo mubaro.
ciyaartoy aadan la ciyaarin laakiin kooxdaada inaad ku haysato aad jecleed ma jira وجرى عادي عاد بلايرين ضوي لكن بلاير كان مش على أنا لا كواحد قصة ديريو بدي على وحوي ما كتير في شغل عبدال يمين سرودين أنا هالك وحوض عيارنا لكن مركز حكومة من جرني ومن جرني عشان ماركي عن هالفنا وضع حرنا وحوض عيارنا كاسم أدي هذا بدي ستة غير كذا على معلنك يقول في أنا وياها أنت عيارتوي معلنك يقول في أنا وحوي معلم محمد عبد الله معلنك يحاول أدي يقول هاي لصقات كوب يقول يسوع كوب عمركم معلنك ينسي عاوي معلنك أدي قال يقول هاي من الله ودونه مرك معلنك سيوقع للسلام معلم سبورتس كهذا كي هراء كان هذا كيف هو نفسي والله عبد الغفار سبورتس كي يرتى قفل دولار وشيلش الس بوحكي شيء كذا كم سبورتس كي هذا ما أنت جول كم تكتشري سبورتس كان هذا سبورتس كي واجر جول كم تكتشري سبورتس آدي اختروها وهذا سيدا مباراة يمسك خمسة تلكم ومركز اللي بيجري بنادر دليلين تهيسين عند هذا كوهذا ما هيستعمل دليلين تسويها هاي دليلين آدي أنقل عين دليلين هاي من بني بكدرين هاي كبدها الصميمية سيدا السوق اللي يصير حماسته هاي دليلين كمدة كلنا حوق السنة دليلين وحاول آدي awoodooda iyo jirkooda iyo meel kasta ka dhisan taayeen marka maanta baleeriinta gobolka hadhay aad iyo aad baleerinta wax isku dhawaan walaal markii aad ahayd 9ka daafac u aragtay kii kugu adkaa ay aad isku wajahdaan ma xasuusta marka 9ka ahaa waan xasuustaa aad iyo aad ma xasuustaa difaaciyo badan oo markaas igu horeeyay garoonka oo aan gadaal ka soo galay ragayda raayo aan ahaa ay difaaciyo adkaa wuxuu ahaa mahbuubay Axmed Qoreere شخصي أدو أركتي تشيل كذي كي يوقف أنا لا عيارت هدي أهل ليت فرسمو تكنيك نكي يوقف أنا عيار وحاول أحمد كيف صلى الله عليه الله نحرسه البيتري يوقف أنا قبل كسومري ميت شيء كذا بيتري يوقف أنا قبل كسومري وفرح شموري marka kugu horeysay maxamed qaranka lagaaga yaray sidee uga falcelisay dareen ahaan wallahi aad iyo aad baan farxay marka qaranka laga yaray galab anoo ilaha aan isdhayn galabtaas balweyn aad timid marka xulka maalintaas hal mar baa dhalinyarada loo yeeri jiray dhalinyarada waaweyn aad kubadda u taageeri jiray marka laga yaray xamaasadda farxaddeeda aad iyo aad ay u sareysay maalintaas ma garanay meeshan sidaana farxad ma garatay Allah naxariisto macna Ilyas oo ma celin ilaahay jannada ka waraabiyo gudoomiyaha Axmed Qoreere markaas maxaan lahaa ragga markaas aan la saftay hadaan wax ka taabtay ragga weyn oo sportiga horeeyay sida maxaa xoday raaga xiraan Sisi Burhan Abdullah Shil Liban Abdulsalam Singi ragga markaan la saftay farxada caadi ma dareemay galabtaas xatana gool baan dhashay goolkii ugu horeeyay markii xulka ugu horeeyay laga yaraahayay xasuustayda ma jira gool aad dhalisay kii kugu weynaa waayahay waa goolka hadda sheegayo walaalaan balweena ka dhaliyay oo markii ugu horeysay xulka laga yeero goolka waa taabashadii ugu horeysay aan taabto marka gadaal baa laga keenay galabkaas Burhan baa lagu bedelay markaas oo soo galayba baaska aan ka helay maxaa xoday oo madaxii ugu baaqsatay أنا هوري مركز شغل لا تكسري الجول كاس يقول فرحة بنا وياهي أنا لا وكريم محمد مركز هاد قد كده مو واحد هاد كوبا بربرية بس واحد هاد كوبا دس أو دتك يعني أطهد هاد وحنا أطهناها ولا لا أطهناها كوبا ده وحن سمين شري سيو أي هنشري عالم دايما كوبا ده أصبح أنا مركز ودي مسير شري يابا أطبعنا مركز لبنان واخترع بالياشي صارنا يضع عباس يبير حيايو يعني كيس يرجع وير في عم بعد مركز أطعنها بدي بمسرنا ولا محمد شحذا الرياضة ميشي قطع دريم تيم كاي كوي تمن المقدورن قطع شحذا الرياضة دام كوشيو برتيري عمر بفلا أيه أفرد الدفاع عناقيل وعدا إنجليز كتوجه عالم دايمرة
cabdikaafi afalaar iyo sulmaan ka dheereeya afartaas difaac ka dhigtay dhexda waxay ka dhigay oo aniga maxamed ah iyo astax tartaraaye laba balana keysay waxaan saartay iyo bicir afarna waxaan ka dhigtay maxamed ibraahim ilay waa dream team kay dream teamkayga walaalaa garoonka gaalkacyo inuu dhismo oo garoon caalami ah noqdo sidee u aragtaa wallahi aad iyo aad baan u faraxsanahay anaga hadda jiilashii hadda naga dambeeyo hadda jaanis aan anagu haysan bay heleen oo horumar aan haysan bay heleen anagu waxaan ku ciyaari jirnay garoonkaas dhagax oo kala dheer oo kabta maalinta ku ciyaartid galabta labaad ku ciyaari kari maanta waxaan naga nasiibaan jiilasha maanta naga yareeyo maanta naga dambeeyo mustaqbalka leh marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumarkaas gobolka mudug iyo dhalinyarada iyo gobolka mudug isku xilqaamay inay garoonkaas xilqaan ku dhismo marka aad iyo aad guddiga iyo dhalinyarada iyo qurba joogta ugu mahadcelinayo horumarkii gobolka mudug sameeyeen maxamed ugu dambeyn barnaamijkan aan ku wareysto ciyaartoyda sidee u aragtaa barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad dhiirigelin u ah maxaa yeelay dhalinyariin hore oo kala tegay oo qaaradaha kala galay isxasuusiyey isku keenay xasuuso hore iyo waayihii hore oo lasoo wada maray aniga waxaa mooday xilligii hadda 2007kii iyo 2006kii 2004kii inaan ku jiro farxad darteed barnaamijkan maxaa yeelay rag igu horreeyey oo hadda wareysiyadoodan dhegeystay oo rag hadda xasanaaf ay ka mid yihiin cumar bafale ka mid yihiin iyo awraas iyo dhalinyaraan aad iyo aad u jeclaa kubaddooda waxaa moodaa maanta inaan marka garoonkii aan ku wada jirna xawaal oo kale marka barnaamijkan aad iyo aad baa u dhiirigelinayaa cabdiqafaar adigana aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa guushaas iyo horumarkaas aad noo samaysay dhalinyarada inaad isku socodsiisay barnaamijkaa 100% waa amaanaya waana mahadsan yahay walaal aad baad ugu mahadsan tahay maxamed wareysiga aan kula yeelanayna wuxuu ku egayaa intaas waqtigaaga muhiimka aad ii hurtayna saaxiib waa ku mahadsan tahay waxaan ku rajeynayaa mustaqbal ifaya waana ku salaamayaa saaxiib waa mahadsantahay walaal shukran saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan janaalkayga fadlan subscribe ii saar aad baa mahadsantihiin